kulantu wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka SB TV qodobada wararka maanta ugu doorkoonaya waxa kamid ah Cabdullaahi Maxamed Nuur oo sharaxaad cusub ka bixiyay amarkii ka dhanka ah Nisa ee garoonka Aadan Cadde madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo diyaal daarood ah abaabulay Sidani iyo Axmed Dube loo la heshiisiyo taliyaha ciidanka booliska saldhigga degmada Holwadaag Najiib Carab oo ka hadlay qaraxii xalay ka dhacay kontaroolka ciidanka ee isgoyska Arwa Idko gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo soo saaray awaamiir lagu sugayo amniga magaalada Beledweyne Ra'iisul Wasaare Roble oo xalay magacaabay guddi ka kooban 5 wasiir oo loo xil saaray baaritaanka afgembiga dhicisooway gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda mudug ee Puntland oo ka hadlay howlgaladii ugu dambeeyay halkaas laga sameeyay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo maktabad weyn ka furay magaalada Addis Ababa qodobadaas iyo kuwa kale dhameystiran u diyaar garoowa maalinimo hadda taariikhda ay ku beegan tahay 2 bisha koowaad 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale dhameystiran ayna ku bilaabnay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo xalay agaasimaha ku meel gaarka ee Nisa Yaasiin Barre ku amray in ciidanka Nisa uu ku soo saaro gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay amarkaasi wasiirka ayaa qoraal kale oo uu soo saaray wuxuu ku sheegay in amarkaas uusan quseyn ciidamada Nisa ee ilaaliya baraha control ee laga galo garoonka balse uu ka kooban yahay dharcadda ka howlgasha gudaha garoonka isbedelka la xiriira ciidamada Nisa ee ka howlgala garoonka Aadan Cadde wuxuu quseeyaa oo kaliya ciidamada dharcadda ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha terminalka ma quseeyo ciidamada gacanta ku haya baraha kontaroolada ee laga galo garoonka Aadan Cadde ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka ayaa qoraal uu soo saaray fiidkii hore ee xalay wuxuu ku sheegay in go'aanka ciidanka Nisa looga saarayo garoonka la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ku soo gudbiyeen hay'adaha dawladda ee ka howlgala gudaha garoonka sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku in ciidamada Nisa ay ku kaceen xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaado joogta kuwaas oo cadeymo loo hayo sida uu sheegay amarka wasiirka lagu dalbaday in ciidanka dharcadda ah ee Nisa laga saaro gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa lagu sugayaa Yaasiin Barre in uu dhaqan geliyo axadda maanta sida ku cad warqadda wasiirka amniga garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa waxa ka howlgali jiray ciidan nabad sugid dharcadda waxayna ciidankan markii hore si toos ah u hoos tagi jireen kaaliyihii agaasimihii hore ee Nisa Cabdullaahi kulana inta badanna waxa loo adeegsan jiray arrimo siyaasadeed iyo in dadka ka dhoofaya garoonka qofkii ay doonaan laga xanibo safarkiisa sidaan ku helnay war lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo diyaariyay odayaal daarood ah si loo helo heshiis daarood midaysan yihiin Farmaajo ayaa odayaasha daarood ku beer la xawday kursigooda hubiye u soo xaqal tagayaan waxaan ku xajisan karnaa ayuu yiri daarood midaysan odayaasha ayuu ku wargeliyay madaxweynaha Farmaajo Dan iyo Axmed Dube in ay u tagaan Dan iyo Axmed Dube shir daarood degdeg ahna la qabto odayaasha daarood ayaa u tagay Dan iyo Axmed Dube kuna wargeliyay in loo baahan yahay in shir daarood degdeg ah loo qabto si loo mideeyo siyaasadda maadaama hubiyaha midaysan yihiin waxa ay doonayaan ay tahay kursiga ninka daarood ku fadhiyo warka markay dhageysteen Dan iyo Axmed Dube ayaa u sheegay in ay soo dhaweynayaan shirka balse xilligan loo fadhin shir daarood waxayna hadda u yimaadeen tahay shirka doorashada maadaama doorashada laga jiro doorashada kadibna aan ka dhigno shirka iyagoona u sheegay in shirka lagu qabto dhulka daarood ee Garowe ama Kismaayo hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaariga qaraxay oo ahaa kuwa raaxada oo noociisu yahay Haryar ayaa ku qaraxay meel u dhow isgoyska Barwax ee magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska saldhigga degmada Holwadaag Najiib Cabdi Abeeb Najiib Carab oo la hadlay wakaaladda wararka ee Soomaaliyeed ee Soona ayaa sheegay in gaariga uu xoog ku soo dhaafay kontaroolka ciidanka ee isgoyska Arwa Idko kadibna uu qaraxay iyadoo ay ciidamadu ay sanayaan taliyaha ayaa xaqiijiyay in qofkii waday oo kaliya uu ku nafwaayay qaraxa gaarigan
ciidamada amniga ayaa xoojiyay sugidda amniga gobolka Banaadir iyadoo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada qalabka sida ay ciidamada amar ku siiyeen in ay waqtigooda ku bixiyaan sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan tan caasimadda. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay in la sameynayo howlgallo amniga beledweyne lagu sugayo isagoo dhinaca kale ka hadlay shaqaaqo dad ku dhinteen oo beledweyne ka dhacday. mudane cali jeyte ismaan oo la hadlay radio Muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay in aan loo dulqaadan doonin in magaalada beledweyne ay mar kale ka dhacaan falal ka dhan ah nabadgelyada magaalada isagoo ku baaqay in cid kasta oo qabta tabasho in ay miiska wadahadalka soo fadhiistaan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa faray ciidamada amniga in ay ka hortagaan cid kasta oo abuuraysa falal ka dhan ah nabadgelyada ayna xoojin doonaan howlgallada amniga lagu sugayo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay magacaabay guddi ka kooban 5 wasiir oo loo xilsaaray baaritaanka afgambigii isku dayay madaxweynaha xilka ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa go'aanka uu ku magacaabay guddigan waxa uu cuskaday go'aan ay toddobaadkii tagay wadajir u gaareen golaha wasiirada. Xubnaha wasiirada ee guddiga uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa kala 1 Cabdulqaadir Maxamed Nuur wasiirka gaashaandhigga gudoomiye 2 Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga gudaha 3 Cabdullaahi Abuukar Xaaji wasiirka waxbarashada 4 Janaraal Bashiir Maxamed Jaamac wasiir dowlaha howlaha guud 5 Cabdixakiin Xasan Ashkir wasiir dowlaha xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa faray xubnaha guddigan in ay baaristooda ku soo gabagabeeyaan muddo 7 ah ayaa lagu yiri qoraalkan xalay ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Mudug ee Puntland Maxamed Xasan Waloore ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo ee deegaanada ku xiran kaasi oo lagu xoojinayay nabadgelyada magaalada. Mudane Maxamed Xasan Waloore oo waraysi gaar ah siiyay warbaahinta ayaa tilmaamay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen dad lagu tuhumayo in ay ka dambeeyeen falalka amni darrada ah iyo kuwa kale ee ku howlana waxyaabaha maanka dooriya kuwaasi oo qaarkood la soo qabtay hubkii ay wateen halka kuwa kalena ay hubka ka carareen. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Mudug ee Puntland ayaa xusay in dagaalka lagula jiro waxyaabaha maanka dooriya uu la mid yahay midka lagula dagaalamayo argagixisada Al-Shabaab isagoo inta ku daray in qaarkood maanta maxkamadda darajada koowaad ee Puntland ay xukuno kala duwan ku diray. Hubka waxa uu ka koobnaa 17 qori oo AK-47 ah 2 qori faal ah iyo qori bazooka qoriga loo yaqaano baroon konton tiga ah iyo 2 F1 oo ah midna ay tahay midda qaraxda midna kalena ay tahay tan qiiqa ah qori nooca loo yaqaano kaarbiinka ah iyo booshiskii ay wateen. Hubkana waxa uu ahaa mid habeenkii dadka lagu dhibaateyn jiray ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Mudug ee Puntland. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta ku furay magaalada Addis Ababa maktabad aad u weyn. Abiy ayaa carabka ku dhuftay in maktabadan loo furay in sare loogu qaado aqoonta dadka Itoobiyaanka ah. Wuxuu intaa ku daray maktabadan oo kale in ay leeyihiin 18 dal oo kaliya dunida oo dhan iyadoo wadamada kale aanay weli u suuragelin. Wuxuu ku booriyay shacabka dalkiisa in ay ka faa'iideystaan xaruntan isagoo dhanka kalena ka dalbaday in ay ilaaliyaan nadaafadda iyo agabka dhaxyaala xarunta. Antaas ayna ku soo afmarin markaad kala socoteen telefishinka SBT TV inta warkan war lamadan kulma doono waxa idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo.